السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada mar kale muuqaalkan kale maanta waxaan eegi doonaa ninkan oo ku noolaanay 24 saacadood kaymaha ugu khatarta badan leh sidoo kalena ugu weyn adduunka ee loo yaqaan Amazon waxaan raadin doonaa ninkan oo kaliya ku dhex nool kaymahan ninkan waxa ku hareeraysan xayawaano khatar ah oo dadka ugaadhsada 24 saacadood ee soo socdana waxay ku sugnaanayaan kaymahan iyagoo soo ugaadhsanaya waxyaabaha ay cunaan sidoo kalena dhisanaya meel ay seexdaan ama hooy 24 saacadood ku sugnaadaan ninkan halka waxyaabo fara badan ayuu kula kulmaya xataa kaneeco weyn ay ku cunaysa isagoona muuqaalka bilowgiisa sheegaya sababta uu sidan u sameynaya inay tahay inuu tijaabiyo xirfadiisa ku badbaadi karo haddii meel cidla uu ku soo beegmo sidoo kalena uu rabo inuu dadka tuso sidoo ninkan keligii u nool yahay meeshan khatarta badan kadib waxaan arkaynaa isagoo si raacaya diyaarad waxaanu sheegay inuu 10 sano ugu dambeeyay raadinayay inuu halkan imaado kadib wuxuu ka soo duulaya magaalada São Paulo ee dalka Brazil isagoo imanaya magaalada ugu dhow ee kaymaha Amazon oo Manaus loo yaqaano halkaan wuxuu ku diray fariintiisa ugu dambeysay maadaama wax internet aanu helin labada cisho soo socda waxaana safarkiisa ku helin doonaa in Jose loo yaqaano kaasoo dadka dalxiisayaasha ee kaymaha Amazon imanaya soo tusi jiray kaymahan 22 sano ugu dambeeyay 4 saacadood ayayna si raacayaan doon si ay u gaadhaan ninkii keligii ku noolaa kaymaha ninkii Jose lagu magacaabay ayaanu la yar sheegaysanaya isagoo ugu sheegay kaymaha Amazon inay cajiib yihiin sidoo kale wuxuu sheegay webiga nimka dhex maraya inuu yahay webigii lagu metelay filinka Anaconda loo yaqaano ninkan marka sida loogu sheego uu naxaya waxaan oranayaa runtaaba ma halkan baa lagu metelay odayguna sidoo kale wuxuu sheegayaa inuu la kulmay dad fara badan oo sheegay in Anaconda ku dhex arkeen webigan inta ay dhexda sii socdaan webiga Amazon aad ay ugu sii raaxaysanayaan waxayna arkayaan inta ay webigan dhex socdaan daanyaro fara badan sidoo kale masas sidoo kale shimbiraad qurux badan ninkan wuxuu sheegayaa inuu weligiiba raadin jiray inuu safarkan oo kale soo galo iminka markuu safarkan ku guda jirana ku raaxaysanayo aad uga helayba markay xoogaa soo yar socdaan waxay arkayaanba yaxaas biyaha hoostooda ku dhuumanaya iyo weliba sidoo kale waxa hoos marisay Anaconda ka baqanaya ama abeeso ninkan wuxuu iskaga dul raaxaysanayba doonta dusheeda isagoo iskaga saxday inta kadib markay soo socdaan doonta ay ka soo degayaan si ay ugu tagaan ninkii keligii meesha ku dhex noolaa xoogaa markay soo yar socdaan geeda waaweyn ay ka hor imanayaan ugu dambeyntiina ninka ay la kulmayaan qaawanaaye kabaala ay meesha ku noolaa markay sidaa u salaamaana ninkan waxa uu sheegayaa ninkan inuu halkan u yimid inuu isaga wax ka barto iyo weliba sidii uu ku badbaadi lahaa ninkan magaciisa waxaa lagu magacaabaa Lino waxaanu ka tirsan yahay qabiilka Tukana loo magacaabo qabiilkana waa qabiil ka yar 5,000 qof oo reer miyiga noloshooduna waxay ku tirsan tahay kalluumaysiga iyo weliba inay ugaadhsadaan markiiba waxay dabagalayaan ninkii kaasoo qorigiisa sita wax yar kadibna waxa ku soo daayay roob ninkanana wuxuu ka cabsanayaa in qalabka uu wax ku duubaya uu ku qoyo ninkii ayuu iska soo daba soconaya si ay ugaadhsi u raadiyaan kadib ninkan ugaadhsada wuxuu isku dayayaa daanyeer meesha saarnaa inuu ugaadhsado laakiin uu la weeyay xabada kadib ninkan dalxiisaha wuxuu la yaabayaa ninkan calooshiisa sababta ay u weyn tahay waxaanu marka dambe sharaxayaa in kaymaan Amazon waxaad cuntaanid ka waayeen sababtoo ah waxa ku dhex jira kumanaan nooc oo kalluunka ka mid ah ninkan sidoo waxa cunaya ayuu sidaa u bararay uu ku leeyay inta kadib ninkii waxba uu soo ugaadhsan kar waaya ama ugaadhsigu maanta uu ka adkaanaya kadibna waxay isku dayayaan doon yar uu isagu samaystay inay ku kalluumaystaan laakiin kalluunka laftarkiisuna wuu goynaya oo kalluun fara badan soo qabsanayaan kadib roob ayaa ku soo daayay ninkan YouTuberkan wuxuu ilaashanaya qalabkiisa bacayeen isku dadayaan isaga iyo kuwii la socday laakiin ninkii kale meesha ku dhex noolaa isagoo qaawan baa roobka iska dhex taagnaa kaymaha kadib roobkii u qaadaya ninkii cadaanka ah Mareykanka kaneecayaaba ka dhirkiisa isagoona meesha ku dhibaatoonaya laakiin roobkii ka yaraanaya kadibna waxba iska cunayaan midho ay soo gurayaan haddaba kaymaha Amazon ayaa waxay ku baahsan yihiin 8 wadan oo ka mid ah South America waana kaymaha adduunka ugu weyn waxaana ku nool in ka badan 3 milyan oo nooc oo xayawaan ah sidoo kale halka waxa ku nool dad fara badan dadkana waa dad cawaana oo ku soo noolaa kumanaan sano webiga Amazon waxa laga helayaa 20% ka mid ah biyaha freshka adduunka yaala waana webiga labaad ee adduunka ugu dheer marka laga yimaado webiga Nile-ka sidoo kale dhirta ku dhex taala kayntana 100 bilyan ay gaarayaan dhirtaasina waxay soo saartaa 20% ka mid ah oksijiinta adduunka oo dhan waxaana lagu naanaysaa sababka adduunka inta kadib waxay bilaabayaan ninkan iyo dadkii la socday iyo weliba ninkii kale meesha ku sii noolaa inay dhistaan meel ay caawo hoydaan ninkii meesha ku sii dhex noolaa ayaana geedii jarjaraya iyaguna way caawinayaan waxayna soo go'ginayaan laamo dhaadheer iyaguna ku xidhxidhaya marka dambe baashi ay siteen buluug ahayd kadibna ninkan cadi wuxuu la yaabayba ninkan iska dhex socda kaymaha isagoo kabala waxaanu ka odhanayaa miyana lugaha dhibaato ka gaadhin isagoo sheegay inuu la qabsaday meesha doonana uu ku maro sidoo kalena wuxuu weydiinayaa miyaanad ka cabsan xayawaanada khatarta ee dadka dila sida shabeelka jaguarka loo yaqaano iyo weliba abeysida weynida Anaconda waxaan odhanayaa jaguarka waxba kama cabsado laakiin abeysada iyo masaska waan iska ilaaliyaa ninkan cadaanka waxba iska sawirmaya wuxuu ka odhanayaa balka horan haddii inagoo meeshan ay dhisanay masaska soo koro waxaan odhanayaa masasku hadday ku soo weeraraan waad iska celinaysaa kadib taandhadoodii yareed ay samaysteen ay iska soo dhex istaagayaan si fiican ayna dadka oo dhan wada dhiseen laakiin ninkan wuxuu la yaabay qaabkan ay u dhisayaan odaygii waday ee Jose lagu magacaabay ayaan u sheegaya markaad kaymaha timaado waa inaad haafna bilaadanka noqoto haafna qof oo aad barataa sidaad u badbaadi lahayd kadibna odaygii Jose dab ayuu shidaya waxaanay ku karsanayaan kalluun ninkii cadaana kaneecaaba isaga ka dharkiisa kaneecada u daran waanu barbararayaa kadibna odaygii ayaa u dhiibay biyo milix lagu daray isagoo odhanaya ismari isagoona caadi yara noqonaya kadib wuxuu dhageysanayaa sanqadha ka baxaysa kaynta wax yar kadibna ninkii ayaaba ninkan ka naxinaya markuu soo qabto mas weyn oo jawaan ku soo rido
ninkana uu qaylinayaaba odaygii qoyska ayaan weydiinaya inuu isagu ka cabsanayo maskan geen kale waxaan ku oranayaa maskan waxa ma cuno isaguna uu sheegay ninkan uu iska sii dayn doono maskan kaynta uu iska sii dayn doono goordhow maska ayaana marka dambe loo soo dhaweynayaa isagoo taabanaya marka dambe ninkii uu iska sii daynaya kayntii halku ka soo qabtay kadib ninkan cadaankii waxa weydiinaya ninkan kaynta ku dhex nool sababta uu kayntan ugu dhex nool yahay waxaan uu sheegay inaanu keligii ku noolayn dad kaloo fara badan ay ku nool yihiin laakiin isagu halkan xiiseynayo isaguna aadi kara magaalada oo 4 saacadood kaliya u jirta laakiin uu halkan kaga farxad badan yahay isagoo ku nool waxyaabaha uu soo gaadhsanayo oo noloshiisuba inuu wax soo qabsado kadibna uu cuno ay tahay ninkana wuxuu weydiinayaa sidoo kale inuu magaalada tagay weligii waxaan uu sheegayaa inuu tagay oo la yaabay gawaadhida iyo dadku siday u nool yihiin sidoo kale imika laftarkeedana uu 3 biloodba mar tago si uga soo qaato waxyaaba u baahan yahay sida rasaasta wax ku gaadhsanayo kale iyo waxaan weydiinayaa weligaa miyay cid ku timid oo sidan oo kale qof dalxiisaa miyuu kugu yimid waxaan oranayaa may imika igu horeysa qof dalxiisaa meesha igu yimaada waxaan mar kale weydiinayaa xayawaanada sidaad ula dhaqantay isagoona sheegay inuu masaska ka cabsado laakiin xayawaanada kale oo dhan uu iska difaaco kadib ugu dambeynta cuntada ay karsanayeen ayaa u bislaanaysa kalluunkii ninkan cadaankana wuxuu ku faraxsan yahay cuntadan uu ku dhex cunayo kaymaha Amazon isagoo sheegay in sababta uu meeshan u yimid bay tahay inuu kalluunkan oo kale cuno si uu qiso uga soo tabiyo kadib ninkii meesha ku sii dhex noolaa ayaa isagu soo geynaya caleemo si ay u saartaan cuntada ay bilad uga dhigtaan kadib cuntada ay iska raaxaysanayaan kalluunkii iyo weliba sidoo kale cananis la dubay kadib habeenka ayaa la gaarayaa ninkan cadaanka isaga waxa uu daran jirkiisa waxaan uu ismarmarinaya waxyaabo uu sitay isagoo iska ilaalinaya kanaacada iyo insectiska inay cunaan meesha ay seexanayaanna waa meel ay ka soo laalaadiyeen geedaha xataa markanaacadiisa ayuu sitaa ninkan caday markanaacada ayaanu isku duubayaa halkii ayaanu iska soo laalaadinayaa hurdo macaan iyo meel macaan ayaanu helayaa kadibna waagi ayaa beriya ninkan nuu soo toosaya isagoo sheegay inuu si fiican u seexday kadibna cadigiisa ayuu iska soo qaadanaya isagoo cadaynaya ninkan kama qasnaba raggii kale la socdayaan wax weydiinaya odayga qoyska lagu magacaabay iyo ninkii kale meesha ku noolaa ninkiina wuxuu sheegay in xalad talo waxay rasansan qadheen laakiin tooshka aan ku shiday ayuu oranayaa haddii tooshka aan u shidi lahayn odayga qoyska ayaa u sheegaya oo meeshu ay midowga ahaan lahayd mid inaga mid ayay bahlad qaadan lahayn intii midowga nagu soo egtaan ayuu ka oranaya kadibna alaabtooda ay iska soo guranayaan wayna soo dhaqaaqayaan waxaana hor socda ninkii kaymaa ku dhex noolaa ninkii cadaanka ayay intoodii kalena way soo daba socdeen ninkan siday u soo daba socdaan ee uu kaymaa usoo dhaafinayana wuxuu keenayaa webigii kadibna ninkan webiga toos ayuu dhex gelayaaba isagoo ku meedhanaya maadaamay kulushahay halka ninkan cadaankaana anakoodadii isagoo ay kaga dhegan tahay oo leeyahay webigan anakoonda miyay ku dhex jirtaa ninkii kalena wuxuu ka odhanayaa haa way ku dhex jirtaa kadibna ninka cadaankaaba odhanaya bal ka waran haddii adigoo iskaga dhex meedhanaya webigan aad dareento masweyne hoostaada maraya kadibna webiga way dhaafayaan waxaan u geenayaa meel yaroo kale oo uu samaystay isagu halkaasoo uu ugu talagalay inuu kada oos galo duufaanta iyo waxaas markii soo dhacday iyo weliba markuu wax soo ugaadhsado waana guri yar oo isagu samaystay dushana jiingada kale kadibna qoraaca ayay halkaa ku karsanayaanba kadib haddana waxaa loo keenayaa wax sharaab oo bac ku jira kaasoo laga soo miiray dhirta waana wax aad u macaan odaygan qoyska lagu magacaabo ayaana garanaya waxaan odhanayaa aad buu u fiican yahay ninkiina u cabayaa ninkan cadina uu ka helayaaba markuu dhadhamiyo kadibna ninkii quraacdii ayuu samaynayaa wayna cunayaan hilib ay soo qabsadeen xalad hore weeye iyo weliba bariis ninkanna uu ka helayaa ninkan cadaanka ugu dambeyntina ninkan markuu cuntada ku soo raaxaysto uu iskaga imanaya Amazon waxaanu sidoo kale sheegay inuu aad ugu faraxsan inuu kayma Amazon xalad wali u hoyday isagoo la jooga ninkan cajiibka ah liina lagu magacaabo ninkan cadana wuxuu sheegayaa inuu ninkan cajiib yahay maadaama isagoo aan u adkaysteen wii kaliya inuu ku noolaado meeshan ugu dambeyntina magaalada ay sidaa ugu soo noqonayaa muuqaalkan halkaas ay ku dhamaanayaan daba saaxiib yaaladeed muuqaalkan ka heshay inta daawanayeen waxaan idinka codsanaa inaad subscribe noo saartaan sidoo kale muuqaalkan aad like saartaan aad baad mahadsantiin